بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال صاحبيال waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu kulana YouTube ee madasha wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqalna waxa ka mid noqonaya Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo gacanta ku dhigay dad lagu tuhmayo kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ka baxsan shakhsiyaadkii kiiskan hore ugu eedeysnaa warar dheeraad ah ayaan daawadayaal idinheena shakhsiyaadkan la soo bandhigay xogtooda oo gacanta ku dhigay agaasimaha NISA Mahad Salaad ayaa barnaamijkeenan ku dhex daawan doontaan sawiradooda iyo muuqaaladooda ayaa saaxiibayaal daawadayaal idin soo dusin doona Mahad Salaad waxa uu keensaday sidoo kale kaarto uu ku dhabar jabinayo kooxdii dalka ka talinaysay 5 sano ee la soo dhaafay oo hormuud ku waayay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kuwaas oo dalka ka geystay gabadfalo waaweyn warar dheeraad ayaan daawadayaal idinheena dhabar jabintan uu ku sameeyay Mahad Maxamed Salaad ayaa barnaamijkeenan ku dhex daawan doontaan oo aan ku falaqeyn doona Mahad Maxamed Salaad agaasimaha dhawaangalka ee NISA sidoo kale waxa uu mushaaraadkii ka jaray shakhsiyaadkii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ku naasnuujinayay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA dakhliga budget ahaan la siiyo dad gaar ah haddaba dadkan gaarka ah Mahad Maxamed Salaad mushaaraadka ka jaray ayaa barnaamijkeena daawadayaal idinku soo gudbi doona balse Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hore ugu naasnuujiyay budgetkii ama miisaaniyadii NISA loogu talagalay shakhsiyaadkan gaarkii maxay qaabilsanaayeen oo ay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uga adeegi jireen shakhsiyaadkan sidoo kale daawadayaal waa daawan doontaan halkan ayaan idinku gorfeen doona yaa kamida maxayse iminka ka dhigan tahay mushaarjaridda uu sameeyay Mahad Maxamed Salaad waan isla odarasi doona waan isla falaqeyn doona saaxiibayaal daawadayaal daawada meel waliba joogto soo dhawo muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Faragan Baraka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada saliimka inoogu reeb markana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay aynu ku hormarnay Mahad Maxamed Salaad agaasimaha dhawaangalka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ayaa waxa uu sameeyay arrimo fara badan oo uu ku dhabar jabinayo kooxdii dalka ka talinaysay 5 sano ee la soo dhaafay oo uu hormuudka amaba gacanka u hayay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Mahad Salaad iyo sidoo kale kooxdii dalka ka talinaysay 5 sano ee la soo dhaafay fadhidayna Villa Soomaaliya ayaa waxa ay isku yihiin dab iyo basiin isma arki karaan in ay isla hadlaan oo ay isla fariistaan iska day Mahad Salaad ayaana doonaya in uu ka arguto shakhsiyaadkaas maadaama 5 sano ee la soo dhaafay ay dalka u geysteen gabadfalo waaweyn isagana ay kula kaceen waxyaabo ka baxsan anshaxa iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ay ugu horeeyaan dilal Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu ahaa 5 sano ee la soo dhaafay ninkii isku dabaridayay dawladii uu hogaaminayay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu gaaray heer la yiraahdo milkiilaha dawladda taas oo ka dhigan in isaga dawladda uu maamulayay arrimaha fara badan ee la gaaray ama go'aanada masiiriga ah ee la soo saarayna uu gacan weyn ku lahaa Mahad Maxamed Salaad ayaa iminka la rajeynaya in uu daaha gadaashiisa ka maamulo siyaasadda Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud loogu baaqay in uu markaasiba ka feejignaado arrimo fara badan oo ugu horeeyo in uu sameysto milkiile waxaana arrimahan oo idil uga digay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble Mahad Maxamed Salaad ayaa iminka waxa uu doonayaa in uu sameeyo wax walba oo uu ugu kurgeli karo kiisas dhowr ah oo ay dalka ka geysteen 5 sano ee la soo dhaafay kooxdii dalka ka talinaysay oo uu hormuudka u hayay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kiisaskaas waxa ugu horeeya kiiska sargaalada Ikraan Tahliil Faarax waxa uu doonayaa in uu hor keeno cadaaladda
shakhsiyaadkii ka dambeeyay afduubkeeda iyo dilkeedana uu waafajiyo waxa ay mudan yihiin islamarkaana uu la xisaabtamo geeyana weeyaane hay-adaha garsoorka ee shaqada ku leh. ikraan tahliil faarax muddo hal sano ayay maqan tahay maadaama muuqeeda iyo maqalkeedaba la waayay 26 Juun sanadkii hore 2021 abaare 2 saac ee fiidnimo. ikraan waa ay maqan tahay ilaa iyo haddana gacan laguma hayo, qoyskeedana waa ay walwalayaan, waxa ayna leeyihiin annaga sidaan uma dulqaadan karno, dhibaatadaana kuma sii jiri karno ee dowladda cusub waxaan uga fadhinaa in ay cadaaladi u keento gabadheena ikraan oo ku maqan gacanta shakhsiyaadkii dalka ka talinaya 5 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan agaasinkii hay-adda NISA oo ugu horeeyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Mahad Maxamed Salaad ayaa hadda waxa uu ku guda jiraa baaritaanada kiiskan, waxa uuna sameynayaa waxyaabo kasta amaba wax kasta oo kiiskan uga gungaari karo cadaaladiisa. waxa uu mushaaraadkii ka jaray CBBdii Farmaajo iyo Fahad u qaabilsanaan jirtay dacaayadaha, waxaana CBBdaas lacaga mushaaraada u qoray oo ku naasnuujiyay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. mushaaraadka uu dadkaasi siinayeen Fahad waxa uu ka bixinayay budgetka ama miisaaniyadda ee dowladda ugu talagashay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Fahad Yaasiin ayaana mushaaraadkaas uu ku naasnuujinaya shakhsiyaadkaas dacaayadaha u fidinaya dowladdii Farmaajo waxa uu ka jaray saraakiisha iyo sidoo kaleba ciidamada NISA. hadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir go'aankii uu qaatay waxaa bedelay Mahad Maxamed Salaad, waxa uuna Mahad go'aansaday in lacagihii uu Fahad ka jaray saraakiisha iyo ciidamada dib loogu celiyo isla markaana laga jaro shakhsiyaadka uu ku naasnuujiyay. agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa joojiyay mushaar lagu naasnuujin jiray shakhsiyaad aad u shaqayn jiray amaba aan u shaqayn hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, kuwaas oo intooda badan hadda degan dalka dibadiisa. shakhsiyaadka mushaar joojinta lagu sameeyay ayaa u badan dhalinyaro caan ka ahaa baraha bulshada, kuwaas oo eedeysan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir u qoray in ay isaga iyo guud ahaan kooxda Farmaajo ku difaacaan bogagooda gaarka ah internetka dadka kala caayaan. shakhsiyaadka eedeysan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir naasnuujinayay ee mushaaraadka u qoray aysan xaqa u lahayn laga jaray waxa ugu horeeya nin la yiraahdo Cabdirasaaq Teera iyo gabar lagu magacaabo Naciimo Qorone oo labadaba laga soo raacday deegaanada maamulka Somaliland. dhalinyaradan iyo shakhsiyaad kale oo ay ku jiraan wadaadka ka baxsaday Mareykanka ee Cabdi Xirsi, shakhsi la yiraahdo Duqbilow iyo koox kale oo qaarkood ku sugan gudaha dalka ayaa loo naasnuujinayay si ay u faafiyaan dacaayada ka dhanka dadka reer Muqdisho. sidoo kale xoguhu waxay muujinayaan in la jaray lacag uu eedeysan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir u bixiyay Isbeeza Politika oo ahaa markaasiba qarashaad siyaasadeed oo aan la ogeyn howlaha loo adeegsan jiray, ha yeeshee la rumaysan yahay in ay ahayd lacagtii dadka lagu dhibi jiray. tallaabadaasi waxay sababtay in lacagahaas la jaray lagu siyaadiyo mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada rasmiga ah ee nabad sugidda, kuwaas oo loo kala qaaday sida ay darajo ahaan iyo aqoon ahaan u kala sareeyaan, waana go'aan xilligiisii ku soo aaday. gaashaanlaha NISA oo hore u qaadan jiray $400 waxaa hadda loogu daray $100. sargaalka haysta shahaado jaamacadeed wuxuu hore u qaadanayay $300, waxaana loogu kordhiyay $50. shahaadada dugsiga sare waxaa hore loogu qaadanayay $200, waxaana lagu daray $100. deblaha iyo mudanaha ayaa dhankooda qaadanayay $150, waxaana loogu daray $50, taasoo noqotay tallaabo si weyn loo soo dhaweeyay oo muhiim u ah hay-adda oo 5 sano ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen koox yahyahato dad qalata ah. Mahad Maxamed Salaad wuxuu hore isbedel ugu sameeyay inta badan hoggaanka waaxaha muhiimka ah ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, isagoo shaqada ka raacday saraakiil jariimooyin xoogan geystay intii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir talinayay, halka uu darajadooda sare u qaaday
qaar kale oo markaasi banisa wax waliba oo ay noqoto kiisas dhowr ayuu doonayaa Mahad Maxamed Salaad in uu ka salgaaro isla markaana uu cadaalada waafajiyo geed dheer iyo mid gaaban ayuuna u korayaa sidii uu sidaasi u sameyn lahaa daawade saaxib wixii warar oo daawadayaal ku soo kordhawaan idila wadaagi doona meel waliba joogto muuqaalkan like saar sina share garay nagu soo biir subscribe inoo sar channelka program markaa si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawadayaal socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo